Barnaamijkeena Faaqidaada Ciyaaraha ee maantana waxaan ku eegi doonaa labada kulan ee caawa la ciyaarayo Champions League. Kulanka horeen eegana waxa weeye kulanka u dhexeeya kooxaha Arsenal iyo Bayern Munich. Labadan kooxood iskuma cusba oo Champions League waa kooxaha ugu badan ee kulmay. 12 jeer bay kulmeen. Haddii ay nugna guule ay kala haystaan 7 jeer oo ka mid ah waxa badisay kooxda Bayern Munich. 2 jeerna draw bay galeen ama barbaro. 3 jeerna waxa guuleysatay kooxda Arsenal. 27 gool ayay dhalisay kooxda Bayern Munich. Arsenalna waxay dhalisay 13 gool. Haddii ay nugna kulanka u dambeeyay Champions League labadan kooxood ay kulmaan waxay 2016 wareegii 16 ku kulmeen. Home iyo away waxa badisay kooxda Bayern Munich waxaana ku badisay 10 gool halka Arsenal 2 gool oo kaliya dhalisay. Marka wadarka saadee farqiga u dhaxeeya labada kooxood si ay isku dhigo goolal qeyr caadi ah ayaa Arsenal looga badiyay. Kulamada kale ay kulmeen waxaa ka mid ah 2012 2013 Arsenal ayaa ciyaarta hore ku badisay 2 gool iyo waxba. Bayern Munich ciyaartii dambe ayay 3-1 ku badisay. Marka birgii hore gool home iyo waxba la xisaabin jiray 3-3 ayay ku dhamaatay laakiin waxa soo baxday kooxda Bayern Munich oo sharciga birga jira ku soo baxday. Aduu markaa kulamadaas waa noocaas kooxdan baa inta badan guulaha haysata. Daweynu ognahay 10 gool hal mar laga dhaliyay iyada lafteedu waa iska ceeb. Labada tababaraha hadlay hadeen labada tababaro way hadleen kulanka ka hor. Tababaraha kooxda Bayern Munich Thomas Tuchel waxa uu sheegay in Champions League ay si wanaagsan u ciyaareen kooxdiisu isla markaasina ay dhaliyeen goolal badan oo aan dhalin kooxo badan oo halkan soo gudbay. Marka wuxuu leeyahay waanu haynaa awoodii Champions League haddii aanu horyaalkii Jarmalka hoos u yara dhacnay. Halkan kooxda kama dhacaso waxa weeye koox awoodeedu wadata. Waana suurtagal oo kooxdani in badan ku soo jirtay Champions League soo ciyaarisay waana kooxaha ugu guulaha badan ee Champions League. Marka ninkani kalsooni weyn ayuu ku qabaa kooxdiisa. Waxa kale oo hadlay isaguna ciyaaryahan Sane oo ka tirsan kooxda Bayern Munich waxa uu sheegay inay Harry Kane ay ka sugayaan in sidii Arsenal uu bashada qeyb soo taaban jiray inuu soo taabto isla markaasna halka kooxda uu guul ugu keeno. Wixii dhammaan ciyaaryahanadu u diyaarsan yihiin laakiin Harry Kane si gaar ah ayay isaga awood u saaran tahay maadaama garoonka Emirates uu gool badan ku dhaliyay kooxda Arsenal had iyo jeer shabaqeeda aanu seegin. Marka bal Harry Kane maanta isaga xoog baa loo soo wadado waxay meeshan uu bartayo si uu goolashiisu iska imanayaan laakiin bal waa arki doonaa. Arteta hadlay isaga laftiisa wax lagu weydiiyay Harry Kane ka war. Wuxuu yiri halka ma joogo Harry Kane kaliya waxa jira ciyaaryahano badan oo khatar ah oo xirfad leh oo goolka dhalintiisana halis ku ah. Kuwa laftooda waxa weeye waanu ka cabsananaa waa inaanu iska ilaalinaa. Sidoo kale Arteta waxa uu sheegay Harry Kane inuu yahay gool dhameystir cajiib ah gool dhaliye cajiib ah oo aan goolka seegin si kastana ku dhalin karaya oo meel kasta ka dhalin karayo macna wala jeeda. Marka ninkii Harry Kane waa la arkay xirfadiisa runtii marka la eego waxa weeye weeraryahan cajiib ah oo goolka inta badan ma seego. Arsenal way naga sheegnayo waa meeluhu iska bariistay laakiin maanta waa eegi doonaa. Arteta waxa la weydiiyay ka waran kulamadii hore waa soo ciyaartay kooxdan DC weyn bay idinka badin jirtay maxaa idin qorshaa. Arteta wuxuu yiri dhowr bilood waxaan ku jirnay sidii aanu kulamadii hore uga soo baran lahayn. Waxa uu sheegay inay mushkilado badan xaliyeen isla markaasina imika uu xiiseynayo inay kulmaan kooxda Bayern Munich isla markaasina isbedel ay sameeyaan ciyaaryahanadiisa iyo kooxdiisa. Waxa hadlay Gabriel Jesus isaguna waxa uu sheegay mar la weydiiyay Harry Kane waxa uu yiri meesha Harry Kane gool ma joogo. Waxa jooga rag iyaga laftoodu goolka aan seegaynin oo xirfad ku badal leh. Waxa uu si gaar ah u tilmaamay Harry Kane waxa uu sheegay inuu yahay weeraryahanka adduunyada ugu fiican imika sida uu sheegay Jesus. Marka waxa uu sheegay in ninkaas halistiisu ay u baahan tahay xal badan. Waxyaalaha kale Jesus uu ka hadlay waxa ka mid ah si nafsi la weydiiyay wax la yiri inta ciyaarida ma fiicnayn adiga laftaada kooxdaada meel wada. Waxa uu sheegay inaanu xasuusan xilli uu kubadda caafimaad ku ciyaaro
oo ula jeedo macnaha dhaawacyada iyo waxa soo gaaray halakeeyey oo foomkaygii ficnaa iyo qaabkaygii kubadeeda ficnaa iga xumeeyey waana suurtagal ninka marka laga hortaa isaga laftiisu waxa weeye waa weeraryahan halis ah oo goolasha aan gafin laakiin dhaawac baa halakeeyey markasta uu dhaawacmaya taageerayaasha kooxda Arsenal oo iyagu laftooda caawina rajeynaya inay wacdaro halkaasi ka dhigaan maadaama aan cid kale oo Bayern Munich taageeraysa halkaasi joogin oo laga ganaaxay marka bal kulankaasi siduu ku soo dhamaado waynu wada arki doonaa halkan ayaan ka wada socon doonaa